maalin kasta ama usbuuc kasta imisa goor baad jidhkaaga maydhaa كم مرة تغسل وجهك أو جسدك أو ثيابك في الأسبوع أو في اليوم إمساد ميدا مركز صبحي صوت توست waxaad jeceshahay dadku inaanu ka arag adigoo wajigaagu foolxun yahay si aad dadka u nacdo foolxumadaada inay arkaan ayaa waxaad ku soo dadaashaa inaad soo daahiriso inaad soo nadiifiso inaad cream soo isticmaasho saabun ku soo midid kullu dhalik madharkaaga iyo muuqaalkaagu si uu qurux badnaado fama baaluka maxallu nadri illahi subxaanahu wa tacaala haddii aad meesha dadku arkaya nadri linsaan ama cayb linsaan haddaad nacayso in dadku ku ceebeeyo oo yidhaahdo qofkan uskaga badan le waa maxay ama qofkan aan nadiif tahayni waa maxay ama qofkan marihiisu nooca miyaan waxba isku falaynin aad uga cabsato inaad dadka dhex tagto adigaan soo cadayanin ama aad uga cabsato dadka inaad subxi ku kallahdo adigaan wejiga dhaqanin ka waran rabbiga dhankiisa markaad u soo kallahdo adigoo halkuu eegaya ee uskag tahay ilaahay wuxuu ina leeyahay muuqaalkiina ma eegayo waxaan eegayaa quluubtiina iyo acmaashiina isagoo qalbigaagu uskaga haddaad xagga rabbi u soo kallahdo subxaana wa tacaala maxaad u malaynaysaa waxaynu u baahanay marka inaynu tahaaratu lquluub noqoto uula acmaalina qabla aljasadi iyo wathawb intaynan marada iyo jidhka ka fakerin inaynu daahirino inaynu ka fakerino inaynu daahirino awalan quluubteena oo aynu leenahay waa meesha rabbi eegaya subxaana wa tacaala